Bismillahirrahmanirrahiim. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa nooc cusub oo lagu magacaabo Omicron variant oo ka mid ah jeermis dhaliyaasha ama fayrasyada sababa cudurka koronaha ama loo yaqaano COVID-19. Noocan loo yaqaano Omicron oo ah nooc cusub isla mar ahaantaana laga ogaaday qaaradda madow ee Afrika ayaa markiisii ugu horreysay 11kii bishii 11aad ee November ee sanaddan aan ku jirno waxaa laga helay waddanka Botswana iyadoo isla bishaasina markii ay mareysay 14ka laga helay waddanka South Africa. Waxaa 24tii bisha November 2021 hay'adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ay u aqoonsatay cudurkan in uu yahay waxa loo yaqaano variant of concern ama in uu yahay halis caafimaad oo dunida kusoo korortay isla mar ahaantaana loo baahan yahay in indhaha lagu soo jeediyo. Waxaana ay u bixisay magaca Omicron oo laga soo qaatay alifbeetada Greek-ga ama Greek alphabet iyadoo laga qiyaas qaadanayo noocyadii hore oo magacyo Greek ah la siiyay sida Alpha, Theta, Gamma iyo noocii ugu dambeeyay ee Delta oo ka dilaacay dalka India isla mar ahaantaana dunida ku faafay halis badan oo caafimaadna keenay. Haddaba haddii aan usoo daadegno muuqaalkeena maxay tahay xogaha caafimaad ee ilaa iyo hadda laga ogyahay noocan cusub ee Omicron variant muxuuse kaga duwan yahay noocyadii hore. Waa midda koowaad waxa ay xeeldheerayaasha caafimaad sheegayaan in noocan cusub uu leeyahay ilaa iyo 32 nooc oo mutations ah taasi oo muujinaysa halista caafimaad ee cudurkan uu keeni karo iyo heerka sarreynta faafitaan ee uu leeyahay markii loo barbar dhigo noocyadii hore ee dunida ka dilaacay. Haddii aan fiirino saameynta caafimaad ee cudurkani ka dhalan karta maadaama aanan weli la helin caddeymo fara badan iyo xogo ku filan oo uu yahay weli mid cusub oo aan dunida si dhammaystiran u gaarin lama xaqiijin karo in uu ka halis badan yahay xagga cudur dhalinta balse waxaa la xaqiijin karaa in uu ka daran yahay xagga faafitaanka marka kuwa horeeto loo fiiriyo. Waxaana xeeldheerayaasha caafimaad ay sheegayaan in noocan cusub ee loo yaqaano Omicron variant uu yahay nooc halis badan keeni kara marka ay timaado ku dhex faafitaanka bulshada iyadoo oo bulshooyinka caalamka looga digayo isku safarka iyo isku gudubka marka ay timaado qaaradaha kala duwan iyadoo qaaradda Afrika hadda la saaray restrictions iyo cadaadis fara badan iyadoo oo laga baqayo inuu dunida ku faafo. Balse taas weli kama aysan hor istaagin in uu noocan cusub ee Omicron variant gaarin qaaradaha kala duwan iyadoo uu hadda gaaray qaaradda Yurub iyo qaaradda Amerika. Haddii aan fiirinana tallaalka iyo waxtarka uu u leeyahay noocan cusub ee Omicron variant waxaa ilaa iyo hadda ay xeeldheerayaasha caafimaad xaqiijiyeen in uu tallaalku yareynayo heerka cisbitaal jiifinta iyo saameynta halista ah ee cudurkan uu ku yeelan karo dadka da'da ah. Waxaa kaleeto oo jirta iyana oo aanan la dafiri karin in tallaalada loo qaato koronaha dhammaantood aysan 100% ka hortagi karin saameynta caafimaad ee ka dhalata cudurka coronavirus. Waxaana jirta wax loo yaqaano breakthrough infections oo ah in qof si dhammaystiran u tallaalan xataa uu cudurka ku dhici karo balse waxaa muhiim ah xataa haddii uu cudurkaasi ku dhaco in aadan la mid noqonaynin qofka aan tallaalnayn. Sidaa daraaddeed ayaa waxa ay xeeldheerayaasha caafimaad iyo hay'adaha caafimaadku ku talinayaan in tallaalka la qaato iyadoo hay'adda caafimaadka ee loo yaqaano CDC ee Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada iyo kontaroolkooda ay ku baaqayso isla mar ahaantaana ay ku boorinayso dadka Mareykanka ah in qof kasta oo gaara da'da 5 sano uu si dhammaystiran u qaato tallaalka koronaha iyada oo dadka da'doodu gaartay 18 sanana ay muhiim u tahay in ay qaataan doos dheeri ah oo loo yaqaano booster shot oo la qaato markii aad dhammaystiratid tallaalka iyada oo si qaas ah noocyada loo yaqaano Pfizer, BioNTech haddii aad qaadatay ama Moderna ay muhiim tahay in aad 6 bil kadib qaadatid dooska dheeriga ah ee loo yaqaano booster shot iyada oo noocyada kale sida J&J haddii aad qaadatay ay tahay muhiim in 2 bil kadib aad qaadato
dooska dheeriga ee loo yaqaano booster shot. Ugu dambeynna, haddii ay noqoto ka hortagga cudurkan, waxaa muhiim ah in aad sameyso dhammaan waxyaalaha muhiimka ah si aad cudurkan uga hortagto, sida in aad xirato maskiga, in aad dadka ka fogaato ama distance aad u jirsato, iyo in aad gacmaha iska dhaqdo, nadaafadda guudna aad ku dadaasho. Haddii aadan tallaalnayna, waa muhiim in aad tallaalka qaadato.